marar badan fariinta dadku naga soo gaadho maxaa la qabtay dhibaatada jirta maxay tahay sidee dadka loogu adeegaa cashuurka dadka halkee la geeyaa sidee wax loogu qabtaa maxaa la qabtaa cabdiraxmaan baa ka jawaabaya caawa su'aalihiina idinka xoroha idinka xaq u leh intii dawlad Soomaaliyeed jirtay qalabkii ugu ballaarnaa ee muxuu ahaa wadooyinka lagu sameeyo hadday kuwii 60kii noqoto hadday dawladii Soomaaliya noqoto ayaanu keenay imikana kaashakina jaygii uu soo saaray takalana wiig dabadeed inay dhaqaaqdo farsamo yaqaanadii oo dhan gacantay ku hayaan maayir waad ku baadsantahay wax qabadkaaga laakiin inta badan dhaliishaan anu ku hayo caawa waxa weeyaan waxa timaada xafiiskaaga waqti dambe waxa jooga safaf dhaadheer dad cabasho ama shaqo doona waxa soo gala nin madaxa albaabkaad soo xidhataa isla 11 kaba waad baxdaa 10 cishay ku gaadhaa halka okay dhaqaale inuu soo galiyo inaanu soo galina waxaanu ka garanaynaa economic status kiina 25 kiina nimba waxaad lahaydeen ka hor markaad noo timaadeen iyo maanta hantida aad leedihiin gawaarida aad wadataan ee fiidada halkaas ay nooga muuqataa lacagta Hargeysa su'aashan ku weydiinaya waxa weeye waxaad si scientific ah noogu sheegtaa hanacaayine lacagta idin soo gashaa waxay tahay maayirka waxa weydiinayaa inuu noo sheego tirada beeraha magaalada Hargeysa ee la qorsheeyay iyo dhulkii ka go'ay iyo wixii lagu qabtay aad mahadsantahay waan ku amaanayaa maayirka wax qabadka fiican oo qabtay waan ku faraxsanahay kala dhalinyarahan waxa su'aashaydu waxa weeyaan waa maxay maayir sababta ay daamaha qaarna markasta biyo u helaan daamaha qaarna aanay aragba magacaygu waa maxamed carab su'aashan maayirka weydiinaya waxa weeyaan hygiene restaurantska amba hoteelada ka dhisan magaalada Hargeysa aad bay u liidataa marka kormeero ay sameeyaan ma jirtaa dawladda hoose عكس على حسبي وطني حرب الليل ودينا حير نمبر 17 حير كردوك wuxuu sheegayaa in qof kasto muwaadina oo da'diisu 18 jir ka weyn tahay oo awooda dhul degsiimo inuu helo oo ay dawladda localkaasi siiso si sixir bararkan dhulkuma u yaraado mushkiladan runtii qofku isagoo doonaya inuu nolol dhisto gurigii iyo dhulkii ay kala qaalisan yihiin oo dhulkii ka qaalisan yahay meesha uga baxdo ma hirgelin karaysaa awood Soomaaliyeed maxaa idinka hor taagan in qofku muwaadinka uu xaq helo iyadoo dantii guud aad ka jaraysan beeraha maaha kaliya taa inaynu sheegno daliilooyinkiisa horumarku qabtay baa ka badan su'aashu ma baahna su'aashu in yar 1 minute su'aashu ma baahna oksinia microphone oksinia ma aha wariyuhu inuu yiraahdo dhaliisha uma la sheego waa qofku hadduu wax sheegayo maanu cadaalad u lahayn waxba uu qabtay inuu yiraahdo maanu xaq u lahayn qofku maayirku mahadsan yahay الله عليك ده ومahadsan yahay maayirku xaq buu leeyahay ra'yigiisa adna xaq baad u leedahay ra'yigaaga maayir waxaan ku leeyahay waxa dhigtay taariikhda ku qori doonta insha Allah nin dhalinyaro oo maanta halka gaarsiiyay Soomaaliland adaa ka koowa insha Allah role model baad noqon doontaa